xukuumadda maanta waxay amartay in shirkadaha bixiya adeega isgaarsiintu ay jaraan internetka. waa dhaqanka dictatoriska. mudaharaadku wuu soconaya, habeen buu socon doonaa, maalin buu socon doonaa, maanta bilow buu ahaa. bismillaahi raxmaan raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan salaamayaa shacbiga Soomaaliland meel kastay joogaan, gudaha iyo dibadda. waxaa maanta dhacay mudaharaadkii silbiga ahaa ee aynu u ballansanayn maalinta Khamiista ee ay socodsadeen axsaabta mucaaradka ah oo ciidiya wadani. waxaanu ahaa isu soo bax nabadeed. xisbiyada mucaaradka ahi waxay siteen boodhadh iyo siidhi oo keliya. nabad baanu dareenkayaga ku muujinaynay, doonista shacabka ayaan cabiraynay, annagaana hogaaminaynay. xukuumaddu waxay u adeegsatay xoog iyo itaal wixii ay haysay. waxay geysatay tacaddi iyo xadgudub badan. waxay adeegsatay xabad nool, waxay adeegsatay sun, waxay adeegsatay jirdil, waxay adeegsatay xadhig, waxay adeegsatay baqagelin, waxay adeegsatay cagajuglayn iyo is-hortaag xuquuqeed. xisbiyada mucaaradka ahi waxa ay soo bandhigi doonaan dhammaan tacadiyada xukuumaddu geysatay, waanaanu wadnaa ururintooda. insha allaahuna wakhti dhow ayaanu iyagoo dokumenti ah soo bandhigi doonaa. xukuumaddu waxay dishay dad shicib ah oo aan waxba galabsan. tafaasiisha dhimashada iyo dhaawaca ee ilaa haddana soo gaadhay dhammaan gobollada jamhuuriyadda Soomaaliland waa sidan: gobolka Maroodijeex, dhimasho 3 qof, dhaawac wuxuu kor u dhaafay 50 xubnood intana soo gaadhay. gobolka Togdheer, dhimasho 2, dhaawac wuxuu kor u dhaafay 40 xubnood. gobolka Sanaag, dhimasho 1 qof, dhaawac ilaa 9 qof. qofka Sanaag lagu dilay wuxuu ahaa qof wheelchair ku fadhiya oo curyaana oo wuxuu galabsaday aan la garanaynin ayay xukuumaddu dishay. marxuumiinta dhintay ilaahay ha u naxariisto. ehelkooda iyo jamhuuriyadda Soomaaliland baa ilaahay samir iyo iimaan naga wada siiyay. dhaawacana waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay siiyo caafimaad sariic ah. mas-uuliyadda khasaaraha oo dhan waxa iska leh oo aanay cidina la wadaagaynin lagama xisaabtami doonaa xukuumadda wakhtigeedu dhammaanayo. raggii xalay saqda dhexe shacabka u hanjabayey baa mas-uuliyaddaa iska leh. iyagaana shacabka laayay, amarkoodaana lagu laayay. mudaharaadku wuu soconaya, habeen buu socon doonaa, maalin buu socon doonaa, maanta bilow buu ahaa. mudaharaadku ilaa xukuumadda lagu soo celiyay xaydaabka sharciga wuu socon doonaa ilaa 13 Noofambar wuu socon doonaa haddaan doorasho la qaban. isbahaysiga mucaaradku waxa uu hadda u bilaabmaya shirar masiiri ah oo dalkan lagaga badbaadinayo keligii talisnimada iyo xukun qarqooshka. dhawaana waxaanu idinla wadaagi doonaa go'aamada dalkan lagu badbaadin lahaa. xukuumadda maanta waxay amartay in shirkadaha bixiya adeega isgaarsiintu ay jaraan internetka. waa dhaqanka dictatoriska in ummadda xuquuqdooda la duutiyo, xuquuqdooda aasaasiga laga qaado. shirkadaha amarka la duldhigay ganacsigooda iyo macaamiishooda ha u tudhaan oo yaanay qaadan amarada khaldan ee siyaasadaysan. waxaan ka xumahay in mar labaad la xidhay gudoomiye ku-xigeenkii xisbiga xamarji. waa markii labaad
mudaharaadkii horena waa la xidhay waa la socotay maantana wararku waxay nagu soo gaadhayaan isagoo ku soo socda mudaharaadka in gaadhigiisa gaadhi lagu dhuftay oo ay mu'aamarad ahayd kadib markuu ka soo degayna la xidhay dhaawacna loo geystay waxaa kaloo xidhan ilaa 100 qof oo muwaadiniin iyaguna ugu dambayn waxaan shacbiga Soomaaliland la wadaagayaa in warkii xalay ee Maxamed Kaahin uu ahaa been abuur aan sal iyo raatoon lahayn mana aha markii koowaad ama labaad ee war beena ummadda la soo hor fadhiisto ama isla soo hor taago waxaase maanta caddaatay inuu warkaa ku xalaashanayay dilkii iyo dhaawacii uu shacabka soo gaarsiiyey maanta iyo inuu dalkan u horseedo dagaal sokeeye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كفرحي إهلكاغا أصحابتادا يو قرابادادا ولا سو دeg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree Free oo ku sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed